waxaa dhawaan dalkaasi Maleeshiya dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya ay u magacawday safiir fadhigiisu uu noqon doono magaalada Kuala Lumpur iyadoo shir jaraa'id oo maanta uu qabtay safiirka cusub ee dawladda Soomaaliduna uu uga hadlay waxqabadka safaaradaasi. Saciid Cumar ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray Kuala Lumpur. dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa safaarad cusub ka furatay caasimadda Kuala Lumpur ee wadanka Maleesiya. waxaana loo soo magacaabay Danjire Mukhtaar Catoosh. danjiraha oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa saxaafadda Soomaalida uga warbixiyay goorta la aqoonsaday safaaradda Soomaalida iyo muddadii ay jirtay waxyaabihii ay u qabteen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Maleesiya. safaaraddan waa safaaraddii ugu horeysay ay yeelato dowladda Soomaaliyeed ay ku yeelato wadanka Maleesiya. safiir ahaan waxaa la aqoonsaday 25kii bishii November sanadkii soo dhaafnay. waxaan la kulmay boqorka dalka Maleesiya 19kii bishii Maarso taasoo aan u gudbinay warqadahayga. howlahan qabanay ayaa waxaa ka mid ah in aynu sharciyada ay ardada Soomaaliyeed xaggan ay ku joogaan aan u habayno iyo dhibaatooyinka shakhsiyaadka ama arday ha ahaadaan ama waalidiin ha ahaadaan ama kuwa iyagu markaa halkan u yimid inay caafimaad qaataan oo daweyn u yimid ha ahaadaan. intaba waxaan u sameynay nidaam isla markaana waxyaabaha ay u baahnaayeen waan u qabanay. waa markii ugu horeysay Soomaaliya ay safaarad ku yeelato dalka Maleesiya. tanina waxay xoojinaysaa xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Maleesiya. sidoo kale waxay fursad u tahay shacabka Soomaalida ee ku dhaqan Maleesiya kuwaas oo baahi u qabay howlaha safaaradeed. Saciid Cumar, Universal TV.